السلام عليكم أصحابتا سو دوادا muuqaalkan yaroo kooban waxaan rabaa inaan idinku la wadaago waalidiinta Soomaaliyeed ayuu quseeyaa oo Mareykanka ku nool madaxweynaha Trump markii uu xilka la wareegay waxaan ognahay wasiirka caafimaadka waxa uu magacaabay nin la yiraahdo Robert F Kennedy oo dadka talaalka caruurta la siiyo aad u dhaliila ah isla markaana maamulka Trump waxay yiraahdeen waa in baaritaan lagu sameeyo xanuunka autism-ka halka uu ka yimaado waa kuwii la xiriiriyay mid kamid ah kaniiniyaasha xanuun baabi'iyaasha ah oo yiri haweenku markay uurka leeyihiin oo qaatanaya caruurta uurka ku jirta sidaas ayuu ugu gudbaa xanuunkaasi marka inkastoo wali aan cadeyn loo haynin dhinaca sayniska ah haddana madaxweyne Trump shalay waxa uu saxiixay wareegto uu ku xadidayo talaalka caruurta la siin karo markii hore caruurta markii iskuulada aadayeen waxa jirtay ilaa 17 talaal oo kala duwan in caruurta la soo siiyay in iskuulka aad waraaqdaasi u geysa cadeynayso laakiin hadda madaxweyne Trump waa uu yareeyay talaalada lagu talinaya caruurta in la siiyo halkii 17 ay ka ahaayeen hadda 11 talaal ayuu ku soo koobay marka mid waxa jira talaalka la yiraahdo MMR talaalkaasi oo laga soo gaabiyo measles, mumps and rubella oo saddex xanuun oo kala duwan ah ama saddex cudur oo kala duwan ah caruurta hal mar ayaa saddexdaasi talaal hal maalin ayaa la siin jiray marka madaxweyne Trump shalay waxa uu yiri talaaladaasi aad ayay u culus yihiin in ilmo marka hal maalin saddexdaasi talaal la siiyo waxa maamulka Trump uu leeyahay waxa loo maleynayaa xanuunka autism-ka inuu halkaasi uu ka imaanayo walow dhaqaatiirta caruurta ay arintaasi waxba kama jiraan ay ku tilmaameen laakiin markuu wuxuu yiri hadda saddexdaasi talaal waa in saddex balan oo kala duwan caruurta loo qabtaa isla markaana saddex maalmood oo kala duwan ama isku dhawaadaan ama ha kala fogaadaan in caruurta lagu siiyo halka markii hore hal mar la wada siin jiray waxaana sidoo kale kamid ah hadda talaalada waalidiintu ay dhaqaatiir loo baahan yahay inay la tashtaan ka hor intaysan caruurtooda siinin waxa kamid ah RSV hepatitis A and B ayaa kamid ah waxa kamid ah rotavirus waxa kamid ah talaalka hargabka kale waxa kamid ah meningitis oo kale kamid ah marka maamulka madaxweyne Trump marka waxa uu maleysaa in wali ay daba socdaan fikirkoodii ahaa in xanuunka autism-ka ay caruurtu ay ka qaadaan talaalada la siiyo marka waalidiinta waxa la leeyahay hadda 11 kaasi talaal ayaa la idinku la talinayaa inaad caruurta siisaan lixda kale ee soo hartay adinka ayaa ikhtiyaar u leh inaad caruurtiina siinaysaan iyo in kale laakiin inta aadan siinin ka hor dhakhtarka kala tashta oo weydiiya walow dhaqaatiirtu aysan ku dhahaynin talaalkaasi caruurtaada xasiinin maxaa yeelay xanuuno fara badan ayaa talaaladan ay ka hortagaan hadda maamulka Trump intii uu xilka la wareegay kadib jadeeco aan 30 sano wadanka lagu arkin oo Mareykanka laga cirib tiray ayaa kiisas aad u fara badan laga helay gobolada Texas, North Carolina iyo waliba gobollo kale oo aad u fara badan marka waxa muuqanaysa marka maamulka madaxweyne Trump sida hadda aan arkaynay faarisadii kala duwanaa ee cuntada laga arkayay in hay'adaha CDC iyo FDA da xanuuno amaba aan cudurro loo baahnaa in wadanka aysan ku faafin amaba in aysanba wadanka marka horeba cuntada la soo gelinayo la baaro in meesha laga saaray dadkii howlahaasi ku shaqada lahaa shaqaale yareyntii wasaaradda ama iraade dowladda federaalka shaqaalihii ay yareynayeen sidaas darteed wareegtadaasi ayaa madaxweyne Trump shalay uu saxiixay halka markii hore caruurta lagu talin jiray 17 talaal oo kala duwan in la siiyo hadda 11 ayaa lagu soo koobay lixda kale waalidiintu iyaga ayaa ikhtiyaar u leh hadii caruurtooda ay siinayaan hadii kale waxa la leeyahay dhakhtarka caruurta waa inay arintaasi kala tashtaan marka arintaasi ayaan rabay inaan idin la wadaago aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta